حقيقة waxaan filayaa in dadkii yiri sida taariikhda loo tilmaamay jiritaanka dadkan mid shalay iyo daraar ama dawakatuur ama wadanka ku soo galay siyaabo kale ee dad ay inta qaarkood qalmaantooda khaldan ay wax u cabiraan ama ay dadka u sheegaan inaysan ahayn dadka inay yihiin dadka ugu faca weyn ee marka loo fiiriyo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan hadday degan tahay bari ama hadday degan tahay galbeed ama hadday degan tahay koonfur ama hadday degan tahay waqooyi dadkan Soomaaliyeed ee ayaga maanta ee ku wada abtirsada beesha tan ama beelaha tan ama qowmiyada tan ama mujtamaca kan ee bari maanta ku wada nool inta wada dhaxaysa labada webi oo ah dad beeraley u badan xirfadlayaal ah dad nabadda jecel dawladnimada macnaheeda fahmaya ah tan iyo taariikhdii fogeyd ee Soomaaliya ma qabla al-islaam islaamka intii ka horeeyay ayay ahaayeen dadka wadanka lagu soo booqan jiray oo aan hadda kor ka taariikheeyay halkan oo aan soo qaadan karno tusaale boqor baraxow uu ahaa ninkii faraacinada ee xilligii Masar xataa ee aanan diinta islaamka iyo dawladnimo iyo wax la mid ah aanan soo gaarin boqortooyadii xilligaas islaamka ka hor nimankii wadankan marka ay yimaadeen ee la dhihi jiray Bond dhulkii udgoonka dhulkii ilaahiyada oo bakhurka iyo faanta maroodiga laga qaadan jiray dadkii lagu soo booqday wuxuu ahaa boqorkii markaas jiray boqor baraxow oo fadhigiisa uu ahaa maanta dhulka la yiraahdo waad ogtihiin marka gosha la aado iyo jubbooyinka iyo dhammaan waxay ahaayeen dadka ugu magac dheeraa ee isticmaalka la diriray ee sida hadda loo tilmaamayo kale walaalaheena shabeellaha hoose ka dagaalgalay biimaal sidaas oo kale waad ogtihiin inuu ahaa ninkii taariikh u dhigay isticmaalka ee gosha ama Jubbaland dhulkan hadda la yiraahdo taariikhdiisana aan maanta la qarin karin boqor Nasiib Bonde waad ogtihiin boqortooyada ka jirtay dhulkan dhammaan ilaa iyo koonfur galbeed ilaa iyo isku soo xira maarta inta u dhaxayso ilaa iyo daafeed soo gaarayso ilaa iyo maarta soo kulaalayso maarta shabeellaha hoose qaybihiisa fara badan waxay ahayd boqortooyadii ka jirtay boqortooyadii eyle oo geedi baabow maanta aad garanaysaan inta baalay ma dadkan dad loo taariikh been abuurayo dad originally ilaa iyo hiiraan bay ka jireen boqortooyadii makana waa loo geeyay walaalayaal Soomaaliya ayaga wax soo tari jiray Soomaaliya dagaal hadii la yiraahdo gumaysi doorkay ka galeen waa la ogyahay hogaamintii Israa'iil wax ku lahaayeen rag wada taariikh leeyahaayeen oo aanan maanta midka kale ka maanta aanan ka dhicin ayagoo taariikhdooda la ogyahay waa la qariyay amba ku darsado hadday gaajoodaan dhulka ay soo aadaan Soomaalida badi ay wax u soo doontaan gaafow galadii ceelqooda iyo dhulkaas oo dhan marka la yiraahdo dadka loogu imaan jiray ee laga qaadan jiray badarka galeyda lagu baahi bixi jiray ayay ahaayeen amba ku darsadee hadii la doono dalxa isaga ma isfaaninay la yiraahdee dharka iyo dhunka ninku dhibaayo dalximuuday u soo dhawaado ninka la yiri ninka waxaan u malaynayaa taariikhda ayada isqorayso gabdhaheena sida hadda oo u tilmaamay hogaamiyaheena dhaqanka halkan gabdhaha ee maanta la barbar dhigi kara xawataak iyo kuwa ka sii xageeyo makay garaare waa garan kartiin gabadhaasi magacay lahayd muumin biyood waa garan kartiin magacay ku lahayd dhinacayna shabeellaha hoose dhulkan intiraha waa kan nabadoonkooda garas waa joogay amooyoonis isla la yiraahdo ku jirtay gabdhaha maanta ee jareer weyne taariikhdooda kaliya hadii hal qor la yiraahdo waxa ay ka galeen halgankii Israa'iil maanta wax la soo qiyaasi kara maaha dhowr meel baan ka sheegay waa ku cilcelinayaa magacay makay waaye minankayna mooyka music-da Israa'iil meer leeyahay ya garaarta mooyka god haleega faago gabartii tir jareer ahay gaalkii gudo diidaan u gowracay
walaalayaal waan ognahay baashaan marka la marin habaabiyey isticmaalkiibaa marin habaabiyey sababta uu marin habaabiyey waa la yaqaanaa waayo talyaani waxa la diray waxay ahaayeen jareer weyn that's why uu ugu darnaaday keli asayle ama ha ku maartay aargoosto ama dardaarinku ka tagay ha yiraahdo kuwan yeysan idinku soo baxsanin ushi uu dhiibay isticmaalka kuwii ayaa iska kaaya beddelay oo ayaga fulinayay amarkii uu kaga tagay talyaanigii haday maanta ee Soomaaliya ay isu naxayso maanta waxay magdhow weydiisan lahayd keli asayle wixii lagu sameeyay jareer weyn dalna ninkii loogu yimaada la diriraa ayaana la guumeystaa laakiin iska socdo ma artaya min waxan ku falay kama intii jooga barnaamijka lagu saaray ana dul iyo dhaqan anagoo leenahay oo aan jirno ayaa isticmaalka noogu yimid kaasaana kula dirirayni kaasaana keenay dagaalkii dhagax tuur 5 iyo 10 baabuur inay ka yimaadaan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyo banaadirka la isku tago oo halkaas tii ka dhacday isla wada ogyahay laakiin nasiib daro in xaawataaka kaliya laga soo qaado intii kale la aaso magacooda la sheegi waayo taariikhdaas dulman dhalinyarada aqoonta leh ee hadda wax baratay iyo kuwa maanta jidka ku soo jiro idinka idin taala si dadkaas lagu soo saari lahaa gabdhahaas anaga maanta waxaan taaganahay Sheekh Yuusuf al-Kownayn bilowgii diinta Soomaaliya wadaadada la xusuuq kamid yahay culimadeena maanta markii la yiraahdo meel anaga aan maanta ku gaabina ma jirto weli aan lee qabo iyo wadaad suuraay iyo wadaadku ya ila Sheekh Aweys dheer Sheekh culimada dhammaan ee magac ay lahayd in wada yaqiinay kulli ma aragtay waa maanta dadka adiga kugu aftirsada way laakiin muxuu yiri wadaadka Sheekh Yuusuf al-Kownayn asagoo ku bilaabay wacdi dhalinyaro uu yiri niman yahow dhageysta xoolo in la dhaco waa xaraan waxa islaam uu leeyahay inaad xoog iyo dulmi aad ku qaadatid waa xaraan marka iska joojiya geela iyo xoolaha aad kala dhacaysaan waa xaraan joojiya warkiiba kugu soo maqlay sheekhiyo kitaab akhrinayo ayuu warmahooda watay albaabka soo istaagay waxay yiraahdeen sheekhow horaan soo maqalnay waxay ka raadinayaan geel dhacowiisa xaraan waay hadduu afkiisa ka soo baxo waxay u talagaleen inay madax gooyaan markaas ay sheekhow su'aalan wadanahay waxay geel dhacowiisa xalaal ma mise xaraan indhahooda markuu arkay naftiisa uu yaab wuxuu yiri almaalu maalullah wa nahnu abidullah nimankii waxaa dhacday intiirada war sheekhan waa laga gardarnaa wax uu hadda maanta yiri oo xaraan amiyad maqasheen maya danaga wadiya gardar miyaan ku dilaynaa waa iska baxeen muddo kadib sheekha kitaabtiisa ababtay diintiya si fiican loo bartay dhammaan maalin asigoo sidaan oo kale marka oo intii ka sii badan laba laabkeeda kitaab uu akhrinay ay hadana nimankii hay yimaadaan war sheekhow bari dhawaad sidaan baa tiri maanta si kala laga sheegayay geel baartay dhicidiisa xaraan way maadaa yiri ha geel dhacowiisa xaraan ninkii islaam xoolihiisa qaato ahlu naar ninkii dulmi ku sameeyo ummadda eebe ahlu naar markaas yiri oodigi daraad lahaayeen maal lahi waxaan ku sheegaa daraad Sheekh Yuusuf al-Kownayn halkool uu ahaa maanta laakiin wuxuu yiri inta noo dhan ee wax baratay ee kacday ee diinta baratay Sheekh Yuusuf al-Kownayn way kulligood annaga maanta hadii shalay jareer aan ku ahayn bid'ah buma artay oo macduudatina oo in yaro maartay farakutiris ah oo dagaalkii anaga aan galayni marna la handado marna la waabsado mar meel walba luuqyada loo galo ragii qiimaha lahaa ee badina laga wada dilay aad ogtihiin mawlid macaani meel cidla kuma dhimanin asigoo halka jireer u taagan ayaa tiyaatarka asigoo gadaasheeda fadhiyo ayuu qarax ku dhintay Salmaan Colaad aroos kama uusan qayb galaynin asagoo dhex fadhiyo matalaada magaciina uu u dhex fadhiyo meesha ayaa qaraxii shaanu ayaa meesha uu ku dhintay aroosna uusan joogin qadiyadiina arbow asagoo dhiikar ku dhacay oo Jabuuti markii nusna lagu yiri iyo wax ka sii liita ayaa sokortii asig intay ku kacday ayaa markuu yimid ayuu u dhintay Haji Aadan iyo Ali Jido oo xildhibaan ahaa Nairobi ayagana dulmigaasi dartiisa ragii sokorta gabay bay ahaayeen ayagana saasay u godgaleen markaan u nimidna halkaan Xuseen Bantu wiilkiisii iyo asaga
asna sokor u dhintay wiilkiisiina xabad ayaa madaxa loogu dhuftay asagoo gurigiis u socdo wax kale looma dilin xoolo islaameed ma uusan xadaynin dhibaato dad uma geysanin waad ogtihiin wuxuu u dhintay qadiyadan maanta ay jiray weyn halistaasi ayaa qof waliba ay wada gashay waad ogtihiin wixii xamar jajab igu qabsaday aniga iyo darawalkii ila saarnaa maanta allah u naxariisto oo midigtayda fadhiyey inay asaga ay ku dhacday noohar dhan iyadoo ay camiran tahay in rasaastiina lagu furay laba wiilna ay iga maqan yihiin sidaana aan maanta aan ku wada joogno kullina meeshaan joogo wiilashaa dhallinyarada ugu dambeey hadda soo galay nin aan maanta dhallinyaradii la socotay aanan ku maqnayn gacan dad oo wax kale naloo dilaya aanan jirin ama dawladay jecel yihiin ama dadkaan ee hurday soo kicinayaan waxaanan ahayn wax kaloo naloo dilaya ma aysan jirin laakiin maanta ciil ma qabno haddaan dhimanno intaanoo dhallinyaro iyo odayaal oo sidaan u wada qaylinayo oo afkooda furtay ayaa maanta annagana shaafinayso ciil ma qabno beri haddaan sidaan ku baxno maxaa yeelay usha dad aan u dhiibnaan haysanaa kolley markaan garowga aniga aan tagay dadka oo dhan markii uu salaamay aniga madaxweyne deni intuu igu soo booday ugu duusmay ayaa wuxuu yidhi warsee waayo dalxa galmudugna hadeeray qorigeedii yaamba ka tumatay ciddina hadeerlayba qorigii yaamba riday oo qorigii qaadatay see wax u jiro markaasaa waxaan dheriga karka wixii ka keenay madaxweyne kulaylka waaye baashaan hadda hiiraalay kasoo bilaabtay aniga kowdhe intii raaskambool intaysa isqabsanin ma gartayaa dadkan wax u sheegaa dhiri qaraabada aad tihiin mudanayaal waa ognahay madaxweyne farmaajo dowladnimada inaad maanta ku jeceshihiin wixii ka horeeyey kullina annagoo wada dulman ayaa waxaan ku wada jeclay dowladnimo adduunyada markee dowladaan naqaana qiimaheedaan naqaanay micnaheeda qori waa qaadan karnay waa dagaalami karnay dad warmo kusoo dagaalamay gamuuno kusoo dagaalamay dagaal hore wax looga qaadi waayaan nahay makasiya marka waxa waaye dadkan waxa waaye haddii ayaga nabadda loo daayana nabaddaasay jecel yihiin inay kusii nagaadaan adduunka nabadda waxaa laysku siiyaa bilad Nobel Peace Prize ayaad maqasheen meesha laakiin waxa waaye dagaalka wax laysku siiyaa bilada dagaalka iyo nabadda waa loo bixinaya annaga dadkeena dagaal kuma dhiirinayno sida hadda odageena uu yiri diintan aan ku dhalanay ayaa xurmaynaynaa waxa wadankeena ee shuruucdiis ahan qadarinaynaa wixii maanta annaga aan filaynay dhalinyaradii wax noo baratay ayaa maanta joogta waa siday aan danaynayna aan sugaynay cabdifataax oo maanta wasiir ah iyo shalay oo wasiir ahaa cabdillaahi colaad dhalinyarada bariyahan facebook nagu waashi kuwaana inay duqsan yihiin annaka habna weerartaan ya aniga ku aan u bixiyaa jirta caliyo guud la shawaaro beeraha markay bislaadaan la shaq soo dhahay maartay jiilaalka la arkayna markii beeraha la qaadaya aan la arkaynin markii la kawaabiyahay la arkaynin markii la cayguwaay la arkaynin markii la waraabiyahay la arkaynin markii la falaay la arkaynin markii ay daanyeerka iyo maartay iyo gumaha iyo laga dhowraayo aan arkaynin waa bislaata markii la yiraahdo le boodka soo koray sabulki asaab ka hormarayo wuxuus idinkan sidaas oo kala dhaqankaas iska ilaaliya dadka ee maartay sidii caliyo tuura madow ama caliyo guud la shabaar oo amal boodka le ka soo boodayo beerta cunug leeyahay inay ku bilaabaan yaa badan soo qaata wax ka fala beeraha hadana waraabiyo haloo dhinto sida odayaashan maanta ay tilmaameen kulli halkan dadka meeshan joogo ustaad waakan ugaas cali iyo kulli halkan wada fadhiyaan shay yariiska oo soo yaano yariiska oo daafeed waa isna qaarna labada inay isu gabreen muxuu odayaal kale halgama meeshan joogan waa aragteen ninkii meeshan qiirada lahay dhalinyaradeena waa idin jecelnahay soo dhawaada hawiyaha la sheegayo ee aan maanta wada degno oo 90% walaalaheena digil imarifle aan nahay wada degannahay biimaalka maanta la sheegayo kulli aan wada degannahay dhammaan waxa waaye sidii anaga iska dhigno ayna wada dhaqmayeen gartiya inguri maxaa yiri habartaaba ku hayso hey bisay kaarta shibaan taha gudoomiye ku xigan waakas aabihiis ay halgamayaasha ku jiray karaama ma garatay gudoomiye ku xiganka maanta waa beri waay kuwa kale waxa jiray aan isku daynay muunga shan ayaan idin siinaa laakiin ma shaqaynin haddii anaga horey laga qaylin lahaa
maalintii aniga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka laga qaaday si sharci dara haddaad qaylin lahaydeen maalinta cumar maaragtay hanti dhowr ee u ahaa ninka aniga kaabayaasha ee dhaqaalaha ee maanta asaga unoo ahaa hanti dhowraha guud maalintii laga qaaday haddaad hadli lahaydeen kuwa kale ee maanta la raaciyay aad sheegaysaan ma aysan dhacdeene waa laga wareegan lahaa ma karta kuraastiin laakiin maanta ma soo kacdeen indhaha ma soo kala qaadeen haddeeray tala gacantiina ku jirta iyo idinka fakani garsaale beelay gaanka maahan isma gargaartaale waxa maanta aan ku gaari weyne tira yari ma aha tacab yari ma aha ciidamada xoogga dalka markaad fiirisid hala kala baxo markii la yidhahdo wallaahi 30% annaga way inkaas yaa haddana arki maysid nin laga amar qaadanayo leeyahay taliye marka waxa waaye dadkan sida ninkii hadday sheegay waaye ishiisa la arke ishiisa lagu tumaa annaga waxaan rabaa shaaba meeshaan taagan halkoo oo kaligiisa duul ee waay miidiyahaan asaga lee siisraba wax u qoraayo ama jireer iyo jireer oo yidhaahdo dad badan ayaa hadda waxay dhahaan niyow naga dhaaf awal jireerka waa la isku dhibaynu si lagu qalbi jabi jireer yahay oo yarwarahay ninkaan hadda wuxuu soo taagay haddaan jireer ahay war naga taa jireernimada sheegshageeda Soomaaliya hortina oo mahad celiya shaasha geesinimada iyo dhiiranaanta ee miidiyiis codka dheer laakiin kaligiis duul weyn inkastoo dhegeysiyaa ee adeegahay haddaan garabka lala qaban guri oodan maayo aqoon-yahanna soo baxday waa ognahay oo wada master degree haysto bachelor ciidaas camal u badan yahay laakiin haddana waxa waaye meeshaan waxaa taala waxintulo xoolihii waa kan waana kaa haastaa shalay waxaa la dhahayay horta kuwaaba iska aaminsanba horta kow waxaa u baahan inaan saxno jireer hal qabiil miyaa mise waxa waaye jireer qabiilo waay maxaa keen inuu jireecna markii asaga ee istirihaydo 100 qabiil asaga inuu sheegto adigana hal qabiil lagaa dhigay dulmiga ugu horeeya kaas waa in hal wasiir lagu siiyo markii adigoo dhan waxaa lagu haystaa hal beel beesha jireer weyne halkaasi kursi ayaa naga wada dhaxeeyo toddobadan kursi ayaa naga dhaxayso inta kale ee annaga aan xaq aan u leenahay ilaahay idinku dhaashay waxa adiga aad raadinaysid na raadkooda haddaadan ku taagnayn sida adiga aad u raadinaysan aadan naftarkeeda jid saxan aadan ku raadinin it is easy ma aha maartay inaad ku heshid maartay waxaad adiga aad raadinaysid baadidaada marka waxa waaye dhalinyaroy fadhiga ka kaca dowladda mid baan leeyahay aan u sheegayaa maanta ragga lagu tilmaamo inteena fadhida waaye oo la dhahayo waxay yihiin nabad iyo nolol oo kaba iyo maartay isirwaan loo geliyay run waanahay laakiin madaxweyne kama xishoonayna xaqa dadkeena ay u qaylinayaan inaan adiga iyo dowladda aad hogaaminaysa inaan u sheegno dowladdaada oo kiyaaraha ugu jiro waa kii meel dheer leh wax ka arkay ee dadka meesha u dhow aan waxba ku arkaynin marka dowladdaada indhaha u geli oo kiyaalka maartaya oo meesha dhowna wax laga arkaayo kan meesha dheer wax laga arkaayo laha fiirino dadka dhakhtarku waxa waaye dadka indhaha xoogaayeen markii waxay u bogi waayo haddii meel dheer waxaa ka arkayna wax u qoraya oo kiyaalka leeyahay long sightness markaas yahay oo kiyaalka aragga fog oo meel dheer aad wax ka arkaysid haddii adiga akhriska iyo meelaha loo dhow adiga ku dhawaayeen short sightness mid meel dhow aad wax ka akhrisid marka labadaba way u baahan tahay dowladda kuwii horena saasay u baahnaayeen calaashaan haddii kale soo maaha dadkan agtaada jooga maba arkaysid kuwa xuduudka jir lay arkay ismaya ya xuduudka jira dadkan madaxweyne waa beriyaa ku dhalatay madaxweynaha keliya ee xamar ku dhashay tahay inta kale xamar isla wada sheegto laakiin naata ee kunushuuto degmada waa beri maalintii lagu soo dhaweynayay sida gabeeyada garbaha aad wixii naftarkay waa taabatay waxaan leeyahay wallahi ninkan bahash hadii uu saac asaga taamada raacu hayo reer waa beri ma loogu turjumaanay madaxweyne haddii banaadirtii hore loo noqdane labada shabeelle iyo banaadir la isku daray dadkan waa la soo banaan baxa maalintii arbow iyo anaga ku banaan baxaynay bintu uno halkan tarbuuno oo diyaaradaha korkeena ay maraayeen xooga nabadda ayaa magaalada dhan ay wada lahayd wallaahi anaga kuwa gaari gacanka riixa keliya haddii mudaaharaad maalin ay kugu soo baxaan u malayn maayo dadkan beenbeenta amiinaan buushishka laga soo wadaya inay adiga ku luli karaan madaxweyne dadka ku roon ha u darnani
dowladdaadana ha kala barato cadowgeeda iyo saaxiibkeeda dadka ku taageersana ha dhihin sida dadka qaarkiisa ay horay ugu hungoobeen kuwa mooraday kugu jiraan kuwa kala raadi wallahi mooraday kasoo baxayaan waana idin dardaraya madaxweyne annaga in dadkaan inay ku jecel yihiin adiga iyo dowladdaada weligoodana dowladnimo sidaasay usoo jeclaayeen dulmina ma ogola dowladnimona weligooda nin ka soo horjeedo gacan ma ku siinin that's why maxay ula dagaalameen isticmaal haddiiba aysan dowladnimo aanan ayaga taageerayn marka madaxweyne siday kuu taageersan yihiin adiga iyo dowladdaada waxaan kaa sugaynaa calaa matar fi saxaab wixii hore hadda maku tegi tag 13 kaas oo adigana lagu duceynayo oo hortaada aanan madaxweyne soo jeedinin anaka naftirkeena xildhibaanada meeshaan aan fadhino ducaysanayaasha aan ku jirno dadkii aan sixiyey aan nahay ma garatay madaxweyne ducada si loo wada dhammaystiro saaxiibkayga walaalkayga marna ardaygayga cumar fiish oo maanta asigana gubernarkii gobolka banaadir u yahay ummaddan ducadooda waa madluumiin waa mustajaaba waxaan rajaynaynaa walaalaheenna ayagana dadaalkooda ayagoo aan leeyahay sii badiya maxaa yeelay inta xamar sheegato nin hadda idin neceb male ama hawiye ha noqdo ama banaadir ha noqdaan laakiin ballantayna maxay tahay afdaboolan dahab ma aha wixii ka dambeeya baadidaadu dee baadidaadu cod dheer baa lagu raagshaa nin aamusay hooyadii qabistay inda adeeg waa raasumaal nimaanan warankaada karin warkaada ma kala taas waa dambeynaysa